Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada cashir kale oo xiiso leh. Waxaa ka hadli doonaa tashbiihi. Tashbiihi macnaheeda maxaa waaye? Tashbiihi waxaa laga wadaa isku shabahayn. Cashirada badan ardayda badankood ay soo qaateen oo ka mid yahay. Marka aan macnahaas la fiirin ereyga kugu cusub ka faa'iideyso. Mrefu kama mlingoti. Mrefu kama mlingoti. Nambarka koobaad waa mrefu dheer kama sidii mlingoti birta calanka oo kale. Mlingoti birta dheer waa calanka Allah. Dada waxaa kaloo dhaho twiga oo kale. Mrefu kama twiga dheer sidii gariga oo kale. Mweupe kama maziwa. La soco labadan erey number 2 nambarka labaad nambari ya pili na nambari ya tatu waxaa lagu dhahay mweupe kama maziwa, cadaan sidii caanaha, iyo mweusi madow kama sidii makaa dhuxusha. Labadan meel kale ahaanta meesha loo dhahay dad ahaana looga dhigay. Mweupe qof cadaa laga wadaa, mweusina qof madow. Kalar ahaan marka caadi la dhahayo waxaa la dhahaa nyeupe iyo nyeusi. Haya, nambari ya 4 nambarka afraad. Mkonde ato kama sidii sindano arbida. Mtu mkonde kabisa. Hadhow markaa qofkaas camal aa dhehayso waa caato sidii arbida, waxaa leedahay mkonde kama sindano. Nyekundu gaduud kama sidii damu dhiiga. Nyekundu gaduud kama sidii damu dhiiga. Tamu macaan kama sidii asali malabka. Nambari ya 6 waa kaas. Tamu macaan kama asali. Mjanja akhlo kama sidii sungura bakeelaha. Pole pole tartiib mise tartiib zaida kama sidii kobe didinka. Mfupi qof gaaban kama sidii nyundo buriska. Nambari ya 9 waa kaas. Pole pole. La soco pole kaligeed maxaa laga wadaa? Waa raali gelin, waa raali noqo waay. Laakiin haddii lagu dhaho pole pole macnaheedu maxay noqonee? Waa tartiib. Iyo mfupi kama nyundo. Mlafi kama fisi. Mlafi kama fisi. La soco meesha mlafi ah iyo meeshaan aan dhahnay mfupi. Nambar 9, nambari ya 9 na nambari ya 10. Kumbuka maadaas waxay u taagan tahay qof. Hata ukiangalia nambari ya 7 na nambari ya 4 mkonde. Fiiri meesha lagu dhahay nambari ya 4 akso bilano. Nambari ya 4 waxaa lagu dhahay mkonde kama sindano. Mkonde qof caata. Maadaas qof ay u taagan tahay dhahne aatinimo. Waxaa u imaanayna nambari ya 7 mjanja akhlilo. Waxaa rabnaa inaan dhahno aqlinimo macna ujanja. So maadaas qof ay u taagan tahay haddaa meesha ku bedelno. Haddaa meesha ku bedelno oo ujanja dhahno oo dhahno ukonde, dhahno ufupi, dhahno ulafi. Waa nambari ya 4, nambari ya 7, nambari ya 9 na nambari ya 10. Tukiweka badala ma, inta ma gilin haddaa gilino inakuwa nini? Inakuwa hali. Ufupi, urefu, ulafi, ujanja, ukonde, atinimo, akhlinimo, gaabnimo, dhooninimo, ulafi. So khaladaad ka dhaca marka maxaa waaye? Khaladaad ka dhaca raba inaan idin sheego. Haddii aa rabta inaad dhahdo qof dhooninimada iska dhaaf, hadhow ma dhehaysid wacha mlafi. Wacha mlafi waxaa waaye dhuuniga dhaaf waay. Qofkan dhuunige faraha ka qaad, wacha mlafi. Laakiin waxaa rabtaa inaad dhahdo dhooninimada iska dhaaf, wacha ulafi. Waasfahansama? Waxaa badanaa la soo qaataa dadka ee dhahaan mjinga oo kale. Qof arkay ku dhahayo wacha mjinga, badanaa ereyga la isticmaalo kaas waa. Waana qalad weyn waa. Wacha ujinga waa doqoninimo. Mjinga ma dhahdo wacha mjinga macnaheedu waxaa waaye doqonka dhaaf waa. Maxaa laga rabaa inaad dhahdo
marka iska ilaali inaad dhahdo wacha mjinga. waxaa rabaa inaad dhahdo wacha ujinga, doqonnimada jooji. haddaa rabto inaad dhahdo waxaas iska dhaaf, udaasa isticmaalay. ma haddaa isticmaasho qofaa ka wadaa, marka waa qalad. wabilaahi tawfiiq.